daawadayaal maanta waxaa halkaan marti inoogu ah ninka aad taqaanin cali jaylaani JK oo aniga le horta macnaa usaan siiha abo beente waa bilow abo بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دبادة برامج كفانك إيسوغان تدواد والبحليدا نوكلات كلا سعوتان تيفيغا SBS تدواد كان هديان ومرتع مقعنا شاكبه abo seerabta hali dhaha magac dhanba waa la soo gaabi جيلاني JK oo kamid ah jilayaasha Soomaaliyeed waa fanaan waa turjumaa maanta ayuu barnaamijka marti inoogu yahay anagoo jeexjeexi doona xaaladiisa nololeed iyo qaabka uu u turjumo filimada maadaama inta badan aad ka daawataan meelaha la iska arko beentiisa waaye anima jeexjeexi karo warka la jeexjeexa ma aane in wariye waxa warka waa ku dhiiba laakiin anagana waa ka daranahay sababtoo ah ayaga mikrofon le waaye laakiin anaga maskaxan ku darsanay waa jeexjeexa asri waa kala dhigdhiga beentiisa waaye qadirkiisa iyo qabiilkiisa ma dhamo anima jeexjeexi karo warka la jeexjeexa waa tahay daawadayaal aan bartaaska mise adiga waa hay علي جيلاني JK horta magacaagu saddexan waa علي جيلاني JK ya ka weyn xaguu kugu bax magacaas horta waxaa la yiri macnaa Soomaali waxay ku maamahdaa magac iyo masiibo maalnay baxaan aniga ben ku sheegay macnaa waxaan jiri JK markay ii bixistom iyo 2 sano 12 sano jiri en magacaas JK wuxuu ka yimid magac la dhahayo JK ha macnaa iskoolka markii intago intee ka quraacati ali dhaha waxaan dhahay JK warjalaatada intee ka soo gadatay JK intee kan ka imaadi JK gilan ku tashay beenna ma aha aniga dad macnaa wax ma iga dhiibi jirin macalinka markii fiiri waxa sir JK ma aan ninkan JK way macnaa ha Jaylaani waxa way ninkan bes way mala celi kara amala sir JK u bixiyana waqtigaas horta JK Jan ma jirin JK Sharif ma jirin JK yalla ma jirin JK waxaa jiri oo dadka macnaa ka cabsaan shinan banaadir adiga ilma eed Xasan Baus ika dad oo waa yeel ka silahay ma jooga JK la cuna hadda la soo baxay waqtigaas ma jirin okay marka wallahi run ahaantii horta magac iyo masiibo maalnay baxaan hadda waxaan u maleeyaa macnaa haddii inta bulshada dhan ii taqaano JK haddii macnaa liisu keeno waxaa ka soo baxay 3 ama 4 oo magac runta ka saayaan hal xiraala laga dhigi waa la soo sheegi waay waa tahay goorma dareentay inaad turjumaa tahay ama waxaan goorma ogaatay adiga horta waxaan dareen ma aha waxaan hebad ilaahay ku siinayo waaye goorma ogaatay aniga waxaan ogaaday 89kii riwaaya la dhahay larbadii jaceelka adiga waa kaas adiga way weydiiso su'aal adiga ka weyn oo ku siiha aan jawaabtiisa nasiibka qabtaa in riwaaya waxa soo baxday la dhahay larbadii jaceelka run ahaantii aniga waxaan ka ahaa directorna waxaan ka ahaa macnaha in jila boskana waxaa liisiyay macnaha laadirnimada ahaatee laadirnimadii marka waxay isugu soo biyo shubatay comedy ma fahantaade gabarta sin u jeclay telefoon la isku direena warqad la isku dira al ultim markii aragta waa suuxay macnaha 24 saacteedan joogi la ma fahmayso ma fahantaade marka waqtigaas aniga jilaynimo aan ku soo biiray ma sha Allah hadana si loo socday turjumaanaan bilawnay 93dii booliisani ilaa hadana abu wala qaraabo waa tahay JK filimka ugu horeeyay turjunta filimka oo ahaa filimka aniga ugu horeeyay aan turjumi waa xasuustaa waxa la dhahaa dil ha markii dambe lagu celiyo la cusboonaysiiyay qaybta kuma talaysaday aniga waxaan matalay qaybta ii sheegay aktarka waqtigaas Amir Qaanan u hadlayay iyo Abaska markii dambe Alfagi ayaa ku celisay filimkaas ilaa markii hore anaga bilawnay turjumaadka ninka bilaabay aniga waa la isku daysaday waa la batay marka insha Allah hadda waa kana waa ujeedaa waa la kala firir dhismad waa tahay JK inta badan waxaad turjuntaa hadda filimada inta badan dadka ay daawadaan oo filimada cusub ah oo jiilka dambe ah waxay dadka ay kugu yaqaanaan nin adigu magaciisa aad bedelatay seerabta inta badan aad u hadashid in la dhahay leelefo marka bal hal mar waxaa noo samaysaa qaabka adigoo filimkii turjumaayo iyo sidii aad ku turjumaysay qaabka dhow ana caawisaayde filim waxaan ku soo qabaa macnaa seerabta oo adoogiisa dilaayo
oo wasiirnimo darteeda u dilaayo wariyaalka u imaahayaan waa wareesahayaan mudana see rabtaa adiga xaalkaaga waxaa waay macnaa dadaa dhameyhoosa kana dhameyhoosa waxaas dhahaa macnaa idinka wariyayaal haddii tihiin intaa wax ka maqashiin anakane intaan wax ka maqalnaa markiin dhahayno macnaa jeceelaan rabnaa ummadda inaan ka samaysano raashiinaan siinaa beesaan siinaa baatiyaan siinaa naaga nimankan wixii rabaanaan siinano maxaan u sii honaa hasha il anaga nagu soo jeeda inay naga jeediyaan yaa waaya isdhahaa wariyaalka kow adiga isdhahaa isha iga soo jeeda at waay marka abo lelefon waa jiraa maasha allah lelefon film waxaa jiraa macnaa aan ka heli run ahaantii naaga uu qabaa naagtiisa ma dheleyso naag kalas luuqluuqyaalka ku guursaa soo loo dhalaayo oo isbitaalka joogo atora naagtaada ku wacooso naagtay baaba dhaloosaa say ugu wacoosaa waay tii kale markaasas dhaha abo war aan kuu sheega naagtaan habeen walba rigoora waa dhigooyaa le waa darbeoya maba dhalohoosaba ma darbo 10 sanaan soo jiidaya saa laakiin hasho rigoora oo waxa aan ku heli penalty waa darbe hore goolka ay ka noqotay haddana saaladay saaran tahay naagtiisa gadaashiisa taaga ma oga marka waxaa horta waa la badan yahay run ahaantii aniga markii la dhaho fasiraada saaxiibkay waxaan jeclahay seerabta iyo ninkaas markiin arko wallahi burhaan gaaray i imaadaa hadda aniga waxba kuu sheegi kari haddii tarjumi lahay laakiin waxaa arki lahayd waata JK dhowr cod isticmaashaa oo filimada ku turjuntaa si fiican bal maanta waxaan jeclaan lahayn in aad nala wadaagto horta cod haddii la dhaho waa badan yahay dadka aan u hadalna waa badan yahay actariin qaar waxaa jiro xataa aniga ciyaalkayga aan lagu aaminaynin oo hadda si yacko waa actor maxaa la dhahayo miixa waa actor fu'aad waa actor marka actor walba actor uu leeyahay anigana ku ii gaaraan leeyahay hadda sida Ritesh Deshmukh anaa iskale iyo wiil kale style dhigaay anaa iskale iyo koo kale adiga waa la badan yahay laakiin macnaa anigaaba soo jeedin actornima hadda comical en barabaaba ani ilmaheyga waxaan leeyahay ilma aan soo tababari banaanka imaadaan waa tahay marka codadka oo waayeelnimadoo kale ajilayso sida u samaysaa waxaa loo sameeyaa igaalkey wata ani igaalkey wadiye waaye wadiye ahaada muxumo waa si u socdi meel xunaska dhacay ko saadabtaan la dhaayas u tagi wadaska soo qaaday walkii madaynin saadabtaa cawadii waa u imaaday usoo la kalbiya albaabka laga bixiyey waa tahay markii laga soo tago turjumaada waxaa jishaa ruwaayado oo inta badan dadka aad ku wacyigeliso qaarna dadka aad kaga qoslisiiso ruwaayadahaasi tee ugu jeceshahay wallahi aniga halba ma jeclibu dhammaan bu waa jeclahay laakiin jaceylkayga wax ma lagu jeedo jaceylkayga dadka iga sii badan macnaha maanta JK wixiis yahay waxba ma aha bulshada iga dhigtay been yaan liisu sheegin taageerada iga dhigtay ani maanta taageera haddii lahaa lahayn JK maba ahaa lahayn abo ad naftirkaa inay soo hor fadhiisatid ay wareesa lahayn bulshada marka bulshada waa shay macnaha waa dadka la kasba karo oo qofka meesha uu joogo ka qaadi kara meel sare geey karaan bulshada aad iyo aadaan macnaha horta aan u salaamaa taageeradeyda maasha allah macnaha waxaan umaleeyaa maanta qofka Soomaali ugu magac badan inaa aan ku jiro umaleeyaa dadkaasaan umaleeyaa farstiyaan ka ahay waa tahay JK waxaan daawaday ruwaayad waxay ahayd silsila miya mishalay miya labadaas mid iska kay qaldan oo adiga guri adi iyo dooli aad guri shaqaale ka tihiin oo dooli aad soo wadays guriga bravo shalay allah riwaayadaas marka riwaayadaas aad ugu qoslaanay wallahi riwaayadaas horta macnaha riwaaya waa laga dhigi leeyahay sheeka dhab ah jirtii ahayd dooli guriga adoogiisa iska shaqeeyay oo run ah mana ogeyn marka booska ninka kala geeyle aan liigu bedeli ma kastaadi riwaayadaas sheekadaas sheeka dhacdi waay maxamed qamar sheeka jirto waay oo sakura sakura way aw laakiin waa idin toost waano toostiya sheegaysa ma sha Allah hadda ka bacdina maleenay riwaayad noocaas laakiin anu waxa ka helay marka suuq qudaarta ka doonays qaabka u soconays qaabka aan u soconay qaabka bolombolada macnaha shaqaalaha disnoogo habkaas u socod lahaayaan u socday hay daawadayaal wali waxaan isku jirnaa qaybihii dambe ee barnaamijka fankii suganta oo toddobaadkan marti inoogu yahay jilaaga caanka ah magacaaga seerabta abo seerabta watahay bal haddii aan ku weydiiyo haddii aan intaas dhan aan ka imaano JK maalmaha firaaqada tahay aniga wallaahi maba u maleenahay maalin ay jirta inay faraaqa macnaha aan leeyahay waxay nolosheedii noqotay halka maalin xataa meelo badan inaan been ka sheego oon dhoo maanta waxaan u socdaa ayeeyadey
maanta waxaan u socdaa macalinka dugsiga ilmahayga u dhigaya xanuunsan inaan kusoo tufaan rabaa macnaa been waa dhammaatay wallaahi fursad male musalsalkii aad adiga alaylehe aad dhahdo musalsalkan waa iga yaabi ku ahaa waa musalsalka hadda aan wada saaxiibo labada gabar isku eg aroohiya la dhahaa musalsalkaas oo kale horta ma isoo marin markii hore baraajiya wuxuu ku jiray macnaha qaybta koowaad hadda kaasaa galay labada gabdha isku eg siday u sameeyeen horta run ahaantii saaxiibo anaa ka helay sheekada ilaa iyo haddana way socotaa wili ma dhammaanin aroohiya la dhahaa marka sheeko aad u macaan oo ku jirto oo gabadha laba gabar isku eg waa ahaa midaa la cabiidsanaa midaa la rafaadsanaa alultim macnaa iidaa bahal noqonayso iidaaba bahal noqonayso dadkii dhanba ka aarsanay wata JK ciyaaraha yuu taageeraa JK ciyaaraha wuxuu taageeraa horta sug JK waxaas taageeraa ninkii badiya leh ay dhinaca fanka haddii aan u imaano inta badan heesihii sanadkan waxay noqdeen ha socotoba maaha adiga waa ka leexoosaa laakiin anima ka leexanay ha socoto ma aha heesaha hadda muusigka qaada waaye iyo macnaha gabdha jirkooda macnaha ganacsi banaanka usoo dhigeen horta waxaan leeyahay fanka fan waaye waa run laakiin fan gadaal u raac adiga maanta hadda leed soo baxday inaad macnaha halahaas dhan aad furato oo aad masrax soo istaagto kuwii kaa horeeyeen oo kaa magac sareeyeen saas ma aysan samayn jirin sumcadda fankana saas ma ah waxaan leeyahay heesaha gad adiga isgadin hadda heesihii iyo muusikadii waxaa wanaagsan muusigii marka soo lama dhihi karo marka muusigii maadaama uu ka wanaagsan yahay heesta bedelkeeda ayagana isku bedelaan ma taas horta macnaha qaladka meesha uu ka socdo waay qofkan macnaha waa fanka waxaa macnaha waa maqashay waxaa la dhahaa aniga fanka waxaan ka dhaxlay hebel fanka waxaan ka dhaxlay hebel war hebelka adiga aad ka dhaxashay fanka sidaad adiga ku socotid ma ku soconaynin JK cashir jahiliye waaye not problem okay dhalinyarta fiiri dhalinyarta qaarkooda macnaha naftirkooda siyaa wax ka qaldan laakiin rag waayo macnaha isha ma u jilcana laakiin adiga habeen haddii tahay xoogaa yar dumar aad tahay xoogaa yar waxaan leeyahay haddii ay dhacdan inaa macnaha hadalkaa xumaan u fasiratiin idinka idin taala anaga qof ma haysano maho anaga qof ma haysano jamacan ka hadloonaa laakiin adiga codkaaga iyo heestaada gad adiga isgadin ilaa iyo hadda meeshaan taagana yani watay JK ma haysta adiga aniga mararka qaar waa gashtaa haye hal xab noo soo qabo in hees waxaa jirta saaxiibkay hadda aan sameeyey oon rabo inaan qaado waa adiga album dhan waay laakiin hal heesaa ugu mac heestaasna hindi waaye macnaha darsi jaceela daa'iga saarnay daalay daruuf maa legu diiday daqarka igaaran daawa u waaye daalay daruuf maa legu diidaye dardi dilo ke kam ho jaati meesha laga keenay ma kasta adi waa la duugan yahay adiga alxaasil kalaam waa la duugan yahay dhowr hees waxaa jira run ahaantii aniga aan sameeyey oo dhalinyaro ay qaadeen oo xataa dibadda kuwa ku nool hadda mararka qaar macnaha magacyadooda inaan sheega ma rabo whatsappkaan ku xiriirnaa ereyaalka iyo waxaan u sameeyaa waa u diraa waxaa jirta xataa hees macnaha hadda ka hor musalsalka laga soo saarayay ilaa iyo haddana liiga sugooyo in aan albumkeeda dhammaystiro xujaa imaataye xasuuqday xaaladee xalmaan waaye xayaatadeed ashqitu filmkaas kaalin weyn ka qaadatay macnaha in run ahaantii heestaas album dhan waaye dadaaba iga sugooy insha allah heesaasna aniga iskale mirahooda anigaa sameeyey mar dhowna waxaan filaa SBS in ay macnaha hesho albumkaas oo buuxa oy dadweynaha u bandhigto taageerada ay arkaan daawadayaal waxaan soo gaarnay gunaanadkii barnaamijka aan ku wareysanaynay adiga waay abooyaakhay an culaaska isaari marmar saana u fududaaha wad aboowad wad yaakhay guud ahaan daawadayaal waxaan halkan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka fanka iyo suugaanta oo toddobaadkan marti inoogu ahaa jilaanka caanka ee Soomaaliyeed Cali Jilaani JK oo kamid ah turjumada Soomaaliyeed barnaamijka daawadayaal wuxuu si toos ah idinkaga imaanaya TV-ga SBS xaruntiisa magaalada Muqdisho dhinaca kaamiradaha qurxoon daawadayaal waxaa duubiyay موها عبد الشرع سعيد حزاء ديق عيسى شيخ محمود iyo maxamed xuseen maxlow
tani inta dib dambe ugu kulmi doona barnaamijka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo nabadiina dhammaantiina iyo isbuuca dambe SBS barnaamijka aan u qaban doono